waxaan idin leeyahay cilmigaa la kala qaataa cultureka lama kala ammaanaysto walidalik had iyo goor waxaan tilmaamaa nukat ay ka sheegaan ninkii gandi la odhan jiray mahatma gandi nin aqoon-yahana buu ahaa oo waddankiisa rabay xornimo inuu horseedo oo aragtidan basifamka la yidhahdo maxay yidhahdaan basifism in aad si nabadgelye aad dagaal ku gashid aragtidaa dunida ku faafiyey mahatma gandi aqoon-yahan buu ahaa laakiin wuxuu ka santaagi jiray dhaqan cid kale inuu qaato saa awgeed wuxuu xidhan jiray laba go' oo cadcad iyo ul buu qaadan jiray labada go' diintan uu haystay iyo dadkiisu waxay dhaqan u lahaayeen go'a hoose marka la guntado inta la duuduubaabaa dabagelis xagga dambaa la geliyaa marka labada din dhexdooda inta laga saaro go'a ayaa sidan bambarka carruurta loogu xidho kale ayuu u xidhan yahay dadka waaweyn baa saa u xidhan waxay sheegaan isagoo wixiisaa xidhan buu ingiriiska iyo meelahan yimi wuxuu rabay inuu boqortooyada la kulmo oo uu ka dhaadhiciyo xorriyadda waddankiisu inuu helo markaa ushiisiina sita labadiisii go'na sita waxay dhahdeen mid ingiriis baa oo taygiisii ku bakhtiisan oo xidhan baa wuxuu ku yidhi what is this waa maxay maradana dabada gashatay ku xidhantay maxay tahay gaandiintaanu maradiisa ka jawaabin buu wuxuu weydiiyey what is this taygii uu kani xidhnaa ayuu yidhi kani waa maxay ninka wuxuu yidhi this is necktie kani waa qoorta bahalkii lagu xidhanaya waa qoor ku xidhad and this is back tie buu ku yidhi markaa yacni maxaa ka dhigay adigu maradaad qoorta sudhatana wax musallama anigu taan dabada sudhayna maxaa wargeliyey hadba qoortaad mid iskaga xidhaye anna halkaas iskaga xidhaan buu yidhi tanna back tie baa la yidhaahdaa tanna necktie baa la yidhahdaa maxaan uga dan leeyay waxaan uga dan leeyay kaljaradu maaha cilmi hamoodin markaad u timaadda iyagoo ama dhafoor xirtay ama marada jeexjeexan qaatay ama kan qaatay ammaan maaha it's a culture waa dhaqan ay iyagu yeesheen adiga waxa lagaaga baahanya waxa weeye inaad dadnimadaada ku faantid dhaqankaaga inaad ku faantid waxaad leedahay inaad ku faantid maaha inaad maydhantid oo kullu naaciq qof kasta oo qayliyey wuxuu sheegay inaad raacda maaha waa inaad qof bini aadama oo jira oo dhaqan iyo afla aad ahaatid waa inaad luminin caqaa'idda iyo valueska aad aaminsan tahay value islaamnimadu waxayna fartay in ballanka la oofiyo in run la sheego in dadka si fiican loola dhaqmo halkan markaad timaadda inaad wixiiba ka baxdo been daldashid oo ballanka ka baxdid oo waxaad doontaad samaysid dee saasi ma aha saas waa adoo maydhmay